een maanta waxaanu shir jaraa'id ku qabanay xafiiska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Hargeysa annaga oo ka turjumayna shir maanta oo bishu 13 bisha ay tahay shir lagu qabtay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland iyo Itoobiya iskugu jira ay ku qabteen magaalada Hargeysa gaar ahaan hotelka Shiraacle taas oo ku taageerayna baaqa odayaasha ay ugu soo jeediyeen hogaanka sare ee xusbiga Uxud Faysal Cali Waraabe taas oo uu tuuray Itoobiya weyn iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaanba uu isku wada haraatiyay siyaasaddiisa guud isagoo oo meel laba u aaba yeelin taas oo uga turjumayno in uu maanta baaqayagu uu yahay in hogaanka ay dhaliisha uu noo soo jeediyay Faysal Cali Waraabe ama Itoobiya ama dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wax maanta aan sal iyo raad toona lahayn ay tahay meel ay ku salaysan tahay inay uno jirin xaqiiq ahaan marka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya loo soo noqdo waa meel ummadda Soomaaliyeed ay milicsan karta maanta waa meel cid kasta oo hanaanka dawladnimo ee ka jira cid waliba ay u aqoonsan tahay waa meel hogaanka sare ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar intii uu hogaanka hayay ay ku talaabsatay maanta wax Rooma dhismaheeda iyo tiyadeeda iyo dawladnimadeedu ay maanta la barbar dhigi karo waxaanu leenahay Faysal meel kale aad wax ka eegtay dhaliisha dawladda deegaanka u soo jeedisay ama ciidanka qaranka ciidanka rijinka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inuuna reer ahayn taana waxaanu ku leenahay inaad dib ugu noqoto apologies ka bixiso horumarka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka jirana aad xaqiiqsato ama Itoobiya horumarka ay gaadhay 26 sano ee ugu dambeeyay wax aan cidna halmaami karin uu yahay taana waxaan ku leenahay mala Itoobiya xidhiidhkaaga ka soo gaabtay inaad xidhiidh wanaagsan la samaysataa kaaga qurux badan labada xusbi qaran ee kale ee wadanka ka jirana iyagana xusbul xaakimka iyo xusbiga mucaaradka wadanina aad baan ugu mahadcelinaynaa siyaasadda guud ee Somaliland waanu taageersanahay nabadgelyadeedii iyo horumarkeedii iyo taabagalkeeda iyaduna aad ba 26 sano ay jirto horumarka ay ku talaabsatay waxaan inaba caadi ahayn weeyi ka shacab ahaan iyo ka maamul ahaan maamuladii kala duwanaa ilaa maxamed dawladdii hore iyo dawladdii dhexe iyo dawladda hadda jirtaaba waxay ku talaabsadeen wax aan inaba caadi ahayn oo dhismaheedii iyo hawsheedii iyo nabadgelyadeeda geeska Afrika ayna ka jirin taana waanu qiraynaa waanu garab taagana waanu isbarbar taagaynaa ganacsiga labada wadan iyo nabadgelyada labada wadanna waan sii xoojin doonaa anagu ka jaaliyad ahaan anagoo labada shacab iyo u kala dab qaadayna dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ka Somaliland iyadana taana horumar iyo nolol wanaagsan baan ka gaari doonaa dadku waa dad shacab walaalo ah Faysal keligii bayna ku egtahay arinta ka soo yeedhay wax shacabka iyo maamulka Somaliland la ogol yihiin maaha taana waanu qiraynaa iyadana anagu dhex joogna wasiirada maalin walba jigjigo Somaliland ku soo daashoonaya xidhiidhka iyo xidhiidhka labada wadan ka shaqeynayana aad baan u soo dhaweynaynaa iyadana oo labada dal laba sina ku wada maarmi kara maaha ka degad ahaan ka ganacsi ahaan ka horumar ahaan ka xoolo ahaan intaba waan xoojin doonaa anagu ka maamul ahaan hadaan nahay maamulka jaaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Faysal waxaanu leenahay war Itoobiya xidhiidhkaagi baa ka soo xidhiidhay bal dib intaad iskugu noqoto xusbigaagan baabaayin baa malaha kugu wacane xusbigaagii dhisaan leenahay anaga shanta nala soo galin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh